Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Fayruuska Shiinaha ka dilaacay ee corona. Dhammaan warbaahinta caalamka waxay aad u hadalhayaan fayruskan dilaaga ah ee ka dhex dilaacay dalka Shiinaha, ka oo si degdeg ah ugu faafayo gudaha dalka China iyo weliba dibaddiisa. Saddex magaalo ku yaala dalka Shiinaha ayaa mas'uuliyiintu go'doomiyeen si la isugu dayo in la xakameeyo fidista fayruska dhimashada leh ee coronavirus. Dhammaan garoomada diyaaradaha kala duwan ee caalamka waxaa taagan kumanaan shaqaale ah oo sugayo rakaabka ka imaanaya Shiinaha si looga hortago faafita fayruskan dilaaga ah ee ka dilaacay dalka Shiinaha. Waxaa yar waqtigan dadka Shiinaha u safraya, waxayna u muuqataa in Shiinaha go'doon saaran yahay. Fayruskan wuxuu kasoo bilaabmay bartamaha Shiinaha, sidoo kale waxaa la sheegaa inuu soo ifbaxay 28 ilaa 30 Diseembar ee sanadii la soo dhaafay 2019. Waxaa la diiwaangeliyay kumanaan qof oo jirkooda ku jirta fayruskan, waxaana la sheegay in 106 qof ay u dhimatay fayruskan halista ah ee bartamaha Shiinaha ka dilaacay. 4500 dad ka badan ayuu sii marayay dadka si toos ah looga helay fayruskan. Cudurku wuxuu ka dilaacay gobolka Hubei bartamaha Shiinaha, gaar ahaan suuqa weyn oo ku yaala magaalada Wuhan, ka oo lagu iibiyo xayawaanada badda. Kadib soo ifbixii cudurkaas, xukuumadda Shiinaha ayaa waxay amartay inay xirtaan daaqadaha guryahana laga soo bixin dhammaan daaqadaha iyo albaabada xirtaan muddo hadda 24 saac kasii badanayso ilaa iyo 36 saac kusii dhow. Dadku socodkooda waa yaraaday, banaankana cidna uma soo bixi karto. 56 malyan oo qof ayaa ku xayiran gobolka, loona ogoleyn inay dibadda u soo baxaan. Waxaana ka mid ah arday wadamo badan ka soo jeedo oo ay ka mid yihiin arday Soomaali. Wadamo badan oo caalamka ayuu gaaray fayruska, inkastoo dad yar laga diiwaangeliyay. Wadamadaas uu gaaray waxaa ka mid ah Malaysia, Australia, Sacuudi Carabiya, Faransa, Nepal, Koonfurta Kuuriya, Singapore, Japan, Mareykanka iyo wadamo kale oo badan. Dhibaatada ugu weyn ayaa ah in fayruska corona marka uu jirka qofka galo inuu 14 bari ku jirayo, la ogaan karinna inuu qabo qofka cudurkaas, laakiin sii gudbin karo. Arrinta mucjisada leh taasoo keentay in dad cudurkaas laga waayay laakiin qabo una gudbiyaan dadka kale, maadaama cudurka aan la ogaan karin ilaa 14 maalin kasoo wareegato kadib markii uu qofka jirkiisu galay. Waa fayrus dilaa ah oo caalamka dhan walwal iyo argagax geliyay. Fayruskan corona asalkiis wuxuu ka yimaaday xoolaha iyo dugaagga kala duwan. Bini'aadamka waxaa ku dhaca cudur ka duwan mid xoolaha ku dhacda, sidoo kale xoolahan waxaa ku dhaca mid ka duwan tan bini'aadamka, sidaasay tahayna isuma gudbin karaan mararka qaar mooyaane. Qofka bini'aadamka ah cudurku ma ridan karo xoolaha, laakiin waxaa jira noocyo gooni ah oo hargabyada ka mid ah oo ay xoolaha ku ridan karaan bini'aadamka. Cudurrada xoolaha ay dadku u gudbiyaan waxaa ka mid ah hargabkii shimbiraha ee uu ka dilaacay Koonfur Bari Aasiya. Inta la yaab kale ayaa ah in haddii uu cudur ama fayrus uu ku dhaco xoolaha uu bini'aadamka u gudbiyo, isu bedelayo mid awood leh oo lagu hubto. Sida ay leeyihiin culimada caafimaadka, wuxuu yeelan marka uu galo jirka bini'aadamka awood kale adkaatana in daawo loo helo. Fayruska Shiinaha ka dilaacay waa mid asalka xayawaanaadka ka yimid. Cudurkan waxaa lagu gartaa qandho, qunfac, xanuun dhinaca xabadka ah, ciriiri dhanka neefsashada ah, ilaa uu qof ka geeriyoodo. Kan waxaa idinkugu hayaa dhowr talaabo aan isleeyahay waa lagu fogaan karaa fayruskaas dilaaga. Talaabada ugu horeysa ugu weyn oo laga maarmaanka ah ayaa waxay tahay inaan Allah aan tala saarano, aan u tawaadicno. Midda xigtana waa inaan difaac ahaan u xiranaa maskaraatada afka lagu xirto. Midda saddexaad waa inaan joogtaynaa nadaafadda, gaar ahaan gacmaha. Waa inaan gacmaha si fiican isaga nadiifinaa, aan gacmaha ku dhaqanaa saabuun ama wax waliba oo nadiifin kara wasakhda. Mid ugu dambeysa ayaa ah waa inaad iska ilaalisaa oo aadan gacmahaaga nadiifsaneyn afkaada geliso ama afkaaga ku taabato ama sankaaga iyo weliba indhahaaga. Wadamo badan ayaa muwaadiniinteeda uga digayo inay u safraan dalka Shiinaha khatarta ka jirta awgeed. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa in uu naga badbaadiyo musiibadaas ka dilaacday dalka Shiinaha. Mawduucana maanta intaan uu egyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.